وما سنتهي ولي حسكا في محمد سيري وانا كان مهل علني ان سو حريركي joogtada oo jaaliyada leedahin aan walaalo xaskaa fiyo Allah u naxariistay waxa labadii maalin la soo dhaafay ka dhacay South Africa gaar ahaan gobolka Western Cape dilal aad iyo aad argagax u leh kuwaas oo ah kuwa dadka Soomaaliyeed ee ku nool South Africa qaasatan gobolka Western Cape ee ka dhaxeen qaabka ay u dhacayeen kuwaas oo ah hab aan qofka haweeraatay la weydiinin wax wada hadal ama su'aala xabadaha la iska furayo sidaasna ay tahay wax laga naxo Allah u naxariistay muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa ku geeriyootay xabadihii noocaas ah oo lagu furayo goobahooda ganacsiga sida kuwa kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen sidoo kale dhaawacyadu waxay xataa kamid yihiin dad custom ah oo South African iyo ajaanib kala ah oo joogay dukaamada qaar oo ayaguna waxay la ka soo gaartay markaas ka fiyo sidaas ay ugu dareed waxaad u malaysaa wax target ah oo ka duwan waxyaabihii hore inay ahaayeen waxa laga maamul soo dhaafay ka dhacay magaalada Cape Town waayahay Koonfur Afrika kuma cusba in qof la dilo ama la dhaawaco balse inta badan waxa jiray sababo dadka dil loogu geysto oo ama in dhac loo geysto goobihii ay ku sugnaayeen marka maxaa la isleeyahay arrimahan aan dhaca aan ku saleysnayn waa ay ka dambeeyaan asakafiyo sida la socotaba muddo hadda laga joogo 7 sano oo la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed waxay ahayd dad aad u nugul ayagoo maceen biday maadaama dilkii iyo bici iyo boof ku batay in gaangeystayaal manaxyaala si ay naftooda iyo maalkooda u badbaadiyaan dadka qaarna ay u arkaan inaansan ahayn wax ku haboon ama in lagu bixiyo sharci oo sharci darro ah haddana aysan jirin wax ku nabad galay ama lagu nastay gaangeystara isku haystay dhaqaalaha dadka masaakiinta ah ee halka ku shaqeysta si suuq madow ay uga qaataan inay ku diraan tana ay sababtay in ayagu meeshii ama isku dhibaatay lahaayeen ay wareejiyaan inay dadka Soomaaliyeed ama ganacsatada ajaanibta ay ku dhibaateeyaan taasoo ah in haddii ayagu isqabtaanba qofka jilcan ama in ama la dilo ama la dhaca ay tahay qofka ka shaqeeya meelaha isku raranta ah ee ka baxsan magaalooyinka kuwaas oo sababay in dhibaatooyinkaas u keenaan in qofka Soomaaliga ah markay ayagu diraanba Soomaalida lagu dilo ama la dhaawacaba sidaas ayayna ku dhacday waana manaxyaal gaangeystayaal ah oo dhiiga iyo maalkooda banaysta dilkan marka ma dadka Soomaaliyeed ayuu gaar u yahay mase ganacsada kale ee aan u dhalan dalka Koonfur Afrika oo ay la qabaan dadka Soomaaliyeed xasanow markii la fiirsho horta Soomaalidu waa dadka ugu nugul oo dhibaatooyinku badan hadda ku dhacaan laakiin ajaanib kalena way la qabtaa sida Ethioopianka oo Soomaalidu meelaha ay degaan la degan ama ganacsatada Soomaalidaba ganacsatada Soomaalidu hayaan ganacsi la haya ama ka qaata Soomaalida ganacsigooda oo daba socdo marka dilalka ugu badan ee gobolka Western Cape ka dhacay hadda waa intaas Ethiopianka la dilay waa 2 Soomaalida la dilayna waa 2 dhaawacyaduna waa tirabel oo sidaas oo ay la mid tahay in 4 muwaadin oo 2 Soomaali tahay 2 Ethiopian tahay ayagana lagu dilo gobolka Western Cape afartii saac la soo dhaaf waayahay marka dalkii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Cape Town dawladda waxay ka qabatay ma jiraan ama wax ay sheegtay in information-kooda ay hayso ma jiraan waxay dawladda ka qabatay arrimahan ku soo noqday deegaanka asan kaafiyo run ahaantii markii meel dib ka dhaco ciidamada ammaanku way yimaadaan ka bacdina waxay galaan howlahoodii ahaa inay wax qorqoraan wax sawiraan ka bacdina aysan dhicin in dib ay loo soo qabto dambiilayaashii falka halkaas ka geystay xalay ilaa shalay waxaan ka shaqeynaynay in community loo adeego dukaanta badanaa way xiran yihiin xaafadaha sida Philippi iyo Yanga maalintii labaad ay xiran yihiin dukaamada ganacsiga dhamaan waxaana loo xiray marxaladda jirta awgeed marka dhamaan shutdown ay ku jiraan dukaantaasu maalintii labaad ay xiran yihiin sidaasna waxay sababtay in dukaankii furanna xabada lagu rido
kii xiranna oo halis u galo sidoo kale xalay waxaa dhacay ilaa 3 dukaan inta yar lagu gubay laakiin ilaahay ka badbaadiyay muwaadiniinta ku badbaadaan marka xirinkina wuxuu leeyahay dhibaatadaas haduu xiran yahay in habeenkii taayir lagu gubo haduu furan yahay maalintina in la xabadeeyo marka walwalkaas aad u weyn ayaa jira laamaha amaankuna ilaa hadda ma jirtaan cid u soo qabteen dhibaatooyinkaas dhacay naxdinta leh waayahay marka gudoomiye waxa ka mid tahay madaxda jaaliyadda gobolka Western Cape in muddaana waxaad u ololeynaysaa arrimaha bulshada dawladda ma kala hadasheen arrimahan maxaase u qorshaysan jaaliyadda in ay ka samayso arrintan aadka u foosho xun ee ku soo noqotay bulshada Soomaaliyeed asakaafi waa aad u mahadsan tahay waxa la qorsheynayaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo in mudaharaadyo ama dibadbaxyo cabasho ah dhibaatooyinka jira laga abaabulo locationada dadkuna ay isu soo baxaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeedna ay tahay inaan wixii maanta walaalka ku dhacay biradagana ay ku dhacayaan taasoo ah inaan sida hadda xaaladdu ku jirta aysan ahayn si qof bilaadan oo noolaa karo taasoo ah in qof meel taagan shaqo u taagan aan waxna la weydiin su'aalo la weydiin inta loo yimaado xabada la iskaga furo taasuna ay tahay wax ka baxsan bilaadanimada marka waxaan diyaarinaynaa inaan community-ga xaafadaha iyo laamaha ammaanka anagoo kaashanayna aan mudaharaadiyadaas abaabulno intii xal laga gaarayna ay dukaantu xiraadaan meelaha hadda dhibaatooyin ka jiraan arrintaas ayaa hadda xoog la saaraa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo ganacsatada Soomaaliyeedna waxay rabaan si ugu dhaqsiyaha badan leh kulamo degdeg in la isugu yimaado kulamadaasuna ay ahaadaan inaan xalka hadda lagu jiro oo san ahaa kara mid lagu sii fiirsan karo sida xaaladdu u taalo marka xasan kaafi Ilaahayna waxaan ka baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ka jira ka dul qaado marka qorsheena waa intaas